fiiri أنا waxaan isleeyahay challenge-ka ugu weyn dhibta ugu weyn ee dhaqaale ee dalkan ku soo socota haddana la arkayo waa arinta environment-ka iyo cimilada the biggest economic disaster waxa weeye waa nabaad guurka ku socda dalkeeni nabaad guurku kala socdo beriga kaliya baddana wuu ka socdaa fiiri waana waxyaabo aanu gacanteena ku falkino waa man made disaster way waddankana abaar xun baa ka jirta dadku waa dhimanayaan Soomaaliya oo dhan iyo geeska dhanba Kenya Ethiopia ilaa from Somalia to Sudan dadku waa baaba'ayaan waa climate iyada u jiro yani climate change dadka ay gaaladu ka hadasho ayaa haddana keena waxa weeye gacantana ku falkina sababtoo waxa weeyaan dhulkii baanu xaalufinay we destroyed the environment dhulkii ayaanu baabi'inay waxaan xasuustaa markii aanu qabanayna Kismaayo shabaabka laga saarayay October 2011 dekada waxaa yaalay Kismaayo 4 milyan oo kiintaal oo dhuxul ah maaha 400,000 maaha 4,000 maaha 40,000 4 milyan 4 million sacks of charcoal waxa weeye imisa geeda baa laga gooyey imisa dhul baa la baabi'iyey imisa xasharaad iyo cayayaan ku noolaa ayaa la cirib tiray la tirtirmay mogtahay inkaarta xataa ka agurmaysa iska qiyaas adiga okay now waagaas waxaan aad uga shaqeeyey aniga iyo ambassador James Wan markaa ambassadorka Mareykanka Soomaaliya joogay ahaa in aanu ka wada shaqeyno barnaamij ah in loo joojiyo dhuxusha dhoofinteeda waxaan soo saarnay February 2012 on UN ka marinay Security Council kala mariyay waxa la yiraahdaa 2036 resolution council Security Council resolution ayaanu sameeyay oo ah oranaya lama soo dhoofin karo dhuxusha Soomaaliya lagama soo dhoofsan karo yani macnaha mana dhoofin kartid mana keeni kartid Soomaaliya lagama dhoofin karo waa to export waa illegal ina soo dhoofsato wadamada qaar soo dhoofsana waa illegal way ogyihiin daan waxa kaaga daran dhuxusha la dhoofinayo cid ay wax taraysaa ma jirto niman carab ah oo Dubai iyo jooga Saudi Arabia ayaa waxa la yiri way maartay waxa ku shitaan fuuqyada iyo cunada iyo ka macaanta cunada ma garanta lagu kariyo iyo yani waa luxury ayaga bashal bay u tahay anaga is our life existence kiwi fiiri waagi hore abaartu waxay martaa cycle bay mari jirtay mogtahay marka cycle-ki waagi hore wuxuu ahaa every 10 years 10 sano waxa la arki jiray abaar 10 years abaartii baastaa 64 waxaa ku xigtay 74 dabadheer waxaa ku xigtay 87 saddex sano ka bacdina ku xigtay laakiin hadda sanad markii aan roobdo sanadka labaad waa abaar geedii baa la gooyay maxaa geedii markii la gooyay geedii biyo celin jiray iyo ciidii waxaa keenta in koonfurto kale marna waa abaar marna waa floods waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa daad markii geedihii iyo wixii celinayay roobka iyo biyihii ma jiraan subhanallah oo soconaya 1987 bishii December ayaa waxaan tagay anoo graduate student ka ah Tennessee Vanderbilt ayaa waxaan u joogay seminar Arizona gobolka la yiraahdo marka University of Tucson Arizona ayaa waxay noo sameeysay lecture ninku markii ima yaqaan Soomaaliya ka imid marka wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo simulation flight simulation adoo fadhiyo theaterka ayaa waxa laga dhigay inaad duulayso kale waa garanaysaa soo markaa marka soo noo waday Peru iyo Latin America oo dul mariyay markuu Soomaaliya dul mariyo waa 7 December la soco dowladda Soomaaliya jirtay ayuu wuxuu yiri saas intee wuxuu yiri the fastest desertification in the world is taking place here right now أنا ماشى وكسر الصحراء يعني نبات جورك وقبل أدون كسر على وماشى صار تذكر تاعيه 87 واجا دخول لما دو فينشرين واجا سيرة تروح لي هذا دول كوالي سيرين شري ودول دم حتى أنا لا أقول إلا طاقة دول كشغين شرت هذا دم باتشر وكشغية مو فهمت هذا داغ قرن كاتشر تروح لي هذا وحكي لهم أنقبين شرين
imagine marka maanta ka waran marka that's why sababta waxa weeye maanta daa ka degtay Kismaayo airportkeeda iyo daa ka degtay Garowe waa isku mid Garowe mutaarada loo oran jiray dhulkaas waa saxaro oo garan geedo kuma yaalaan Kismaayadii waanta waa the same ayadana waa la xalfay waa la jaray okay marka ana waxaan leeyahay xooluhu waa dhamaanayaan wixii xoolo ku wixii waa ogtahay anaga dhaqaaleena wuxuu ku dhisnaa xoolo ku dhisnaa marka xooluhu waa baaba'ayaan dadkina waa baaba'ayaan dhaqaaleena waa baaba'ayaan badii sidoo kale waxaa ka socda iyana xaalfin baa ka socota iyo an ma control badina waqti la ciidan control ma jireen toxic balaka adeeganaysa toxic waste dumping marka waxaan leeyahay dhaqaalaha oo sida looga fakarayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye dhibta uu keenayo environment issue. This is the biggest problem. Geesku Afrika waa isku wada mid